okay laakiin annaga waxaan rabnaa pointiga haddadan markaad meesha tagtay iyo deeqii inta nala joogay labay kala yihiin aan ku niri laba qof ay kala yihiin waayo shakhsigii oo Omar ka cabanayay ayaad difaacaysaa aan ku aragnaa oo weliba qofkii wax ka sheega aad ku qabsanaysaa taasaan arkaa ani baan kuma sheegayo xaqiiqa hadalkaagaan dhegaysanayay marka waxaan rabaa deeqii shalay iyo deeqa maanta ah farqiga u dhaxeeya inaad ummadda u caddayso oo isbeddelka keenay iyo waxaan kaloon kaa rabnaa walaalow ayadoo si tartiiba noogu sheegaysa waxaan ku yidhi war xogta dhakhtarka xataa waa dhintay waa nool yahay qof inuu siiyo wuu diiday cid walba annagaa dhan kasta soo marnaa adna dhan kasta inaa martaa laga yaabaa sidee ku heshay oo aad ku ogaatay inuu wiigaan hadda dhalanayo dhexbartankiisa uu soo baxaayo halkaad xogtaas ka keentay ayadana ummadda Soomaaliyeed u caddee waayo waa muhiim anaga farxaday noo tahay taageerayaasha Omar in dhaho Omar ayaa soo baxaayo culaysyana saaran oo wiig iyo ka badan aan weliba ka walwalayno ayaa waxay tahay inaan uu naga degaan aan rabnaa marka hadalka dhehaysid walaalka iyo ka fiirso waayo xaqiiqo badan ahaynaa inuu dhaqso soo bixi doonina iyo ninkan meesha la geeyay marka walaalow adiga oo ninaan ku kalsoonahay labadaas su'aalood oo isdul saaran halka su'aal isku ah bal nooga jawaab aadaan u mahadsantahay deeqo horta dhegeyso ilaadeer aniga waa ku tirsanay 40 milyan baa ku tirsanay idinku idin tirsanin aniga idin tagay aniga isdiray oo meesha aaday ilaa hadda ana lafay ku jiifo hotelkeegi iyo baabuurtii la baxaya 40 milyan waxay siiso igu tirsantay maanta hadal igu leeyin ma jirto aniga waxaan u fahmay 40 milyan inaysan passport wada haysanin inaysan lacag wada haysanin inaysan waqti haysanin in aanu markaa munaasib ahay marka anigu inay igu amaantaan beehed meeshii hadda anigu joogana warkaan nii keenay qof wargala baan ahay inaa warkayga qaadataan hadduu dacarka qaraar yahay liqa weliba isku dayna kariin laqaan liqdaan inay igu amaantaan oo iga dambeysaan meesha waaye idinkoo ka soo qeylinaya halanbaqa yaano meeshii dhex taagan inaa idinka war ay tabisaan igama sugaya aniga haddaa leedihiin Cabdulqaadir oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Norway weliba 6 sano iyo ka badan ah hadduu nin xun yahay gudoomiyaha maxay uga dhigtay jaaliyadda Norway degaba waxay dadka qasho oo dad waarana waliba kaaga daran ninkaas waxa marxaati waxa la beenaale marxaati wuxuu kashadaa nin dhintay iyo nin fog saaxiibka marna in adeerkay ah waan u malay inuu yahay nin ogaadeena Maxamed oo halka jooga asaga wuxuu ugu dhahay gudoomiyihii wakaase raac afkiisu igu dhahay hadduu nin xun yahay muxuu ii raacay maanta miiraha warinkan waa hadda safar baa noogu yimaad waxa uu ogide gudoomiyaha iyaga waa macalinkeed cunta anagu noconay oo gudoomiye noo ahaa inta xilka ka qaadayno deeqo ha raacin anaa ku badbaadinaya asagana ii hor yimi asagana igu daray gudoomiyaha hadduu xun yahay gudoomiyaha muxuu igu daray Maxamed hal weydiyo asaga igu daray raace waa maxay halka iga saaran cid kale ma aha marka gudoomiyaha anigu Omar miihi Omarna wuxuu yiraahdaa ninkaas uu sii imaanin waxba iga sameeyay waa ognahay waan ogahay anigu waan xaqiiqsanahay balse anigu gudoomiye waxaan ka arkay oo igu la dhaqmay baa meesha ka sheegay wanaagiisii hadaa leedahay wanaagiisa waxa ka ama gelin xumaantiisa soo wari wax xumaan ku arkay ma arag lamana jiree gar ilaahay bataqaana gartiisa siinaya god loo mitirana gelaya qof wuxuu saahayna kama dhigaayo wuxuu saahayna kama jiraay maxay ahayd hadalka suu yahay inaadeer waa xadiis oo ina u sheegtid waxa runku waa ina been ku maraadinayo gudoomiyaha wuxuu gudoomiye u noqday anigu itusiye gudoomiyaha sheegtay madaxweynaha Soomaaliya u qalmaa uu igu dhahay inuu raadinayo anu xumaanu salahayn ma tabinayo marka ha iga raadinina qofka ina anigu soo caayo hore igmiina baran gabar waliga ma aynin qof shakhsiya anigu ma ayto maalba iska soo gal khad waa iga dhaca TikTok waa ku jira bini aadan baan ahay ilaahay waa ma qaldamay ilaahay baa ah ana khad waa iga dhacay mar walba isku daya wanaaga inaan ka shaqeeyo haddaan ilaa waxaan baa jireen wixii jira soo wariyay ceeb yaan laga dhigin waa wixii jira aanu liqno saytaha u qaadano Omar ma soo baxaya ma soo baxayo Omar wuu soo bixi doonaa anigu waxaan ku raadiyay gudoomiyaha oo sidaas aan u faaniyo oo uu wanaajiyay oo inta ka sheegay ba waxaan ku sheegay gudoomiyaha laftigiisa waa laga yaabaa iyo ninkan iyo dadku in isla og yihiino Omar la qashay oo xitaa dhakhtarka dhifayso ninkan wuxuu yiraahday dhakhtarka iyo Omar markii la xiraay cidna uma dhaxaynin waa loo dhaxeeyay ana hadda ku sheegaya gudoomiyaha ii sheegay gabdhihii baa ii sheegay waxa la dhaxay ninkan wuxuu xabsiga ugu jira oo maanta ku jiro waxa la wacay 911 lambarka iyagu wacan booliska la wacay waxa loo sheegay Omar inuu waalan yahay oo isdilaayo
markuu booliska imaanayo oo guriga imaanayo Omar hadalkiisa uu sheegay Ingiriiska ah booliska waxba kama soo qaadayaan booliska mabdii loo wacay oo u yimaado waxay ahayd Omar inuu waalan yahay oo la badbaadiyo hadal walba oo Omar yiraahdo waxba lagama soo qaadin marka yaan la dhihin Omar asaga booliska la hadlaysa meeshiiskeeyay Omar intuu boolis wacday ma dhihi kaalay xiray waa waalanahay waa la wacay waana la geliyay dadka xiray hadii leedo aan ka hadlina hadda hadalka ila galay waa familkiisa marka afaara la qaliyo familina waa qarinaya kama hadli karo familka privacykiisa dhowraya hadii laga fursan waayo Omar oo waxaan dhahay xanuunsan soo baxo wax walba oo sirahay waa sii deynaya ariga idagayso hadda privateki familka u daayo waan gaabsaday waan aamusanahay برايفت هل ده يسولف دينه أنا يقول لي دهين بقى أنا أقول ما دام هني وريا أو ورك ماشي لقى شيء يمرك مناسب يعني بوحد وانا قرينا يا ما أنت تهيأ وقت كذي مناسب كذا عدو عمر في عصابه أسرع حلية أنا عمر حكم شيء نبدي وواليها نمرني وفيويا أنت كارتين بكارك لما أنا كل من لكن أنا دخترك ما لكرت ما أنت ورثنا وان لكل ماي وان لكل ما نديلها وحنا نقول ماشي وبهالجرين إنه وان واي دختر وان واي ده كعب صارك لكن سأريو دختر يس وحيقول هاي أنا معلومة صوص على سنين تورثه بأرك دونتا وفحنا هاي دقيسوا حكونا أنا وريانا هاي ملايين قفوا صوماليين وبسيط كينا وارتين إن هل مليون كبدان ضد وبصاب وقتان ده هاي وبسيط كينا كام تيجي واحدتين تتكاس عنك إصابة صدي مديو وريا مدح برنامج هاي محن دتك وجود بيا واحد وجود بيسا إن إربلا الدورين كينيال ير أو ما أرتين كوسي إحنا أو باسيني وح قلدنا لو ما سمعينين صدق شربوا كهلا كورا دختك لسه بين إيش صدق شرسا وأركاي مرة يقول ده حسيا مسؤول إسكا قفكر أو أسقط البضاعة أركي كره مرة سفارة يقول ده هاي مرة قبل إكران اللي هذا يقول هذا صدق شرب دختك يقول ده هاي وأنا صوّع كتاب والله الكلام والدكتور يقول ده هاي لكن يقول ده سنين تيجي كذا بيا وفرح الدكتور يقول ده دتك يقول بأنه تحسن ده هاي وصوب حضارة أنا هذا دكتورك مركز سنين تعديل ويتلاذب بعروكوا هم هاي إن عمر العرق الدورة وحي كذا بيو دعنا ما دكتورك بروح على ويري هذا نيكا بين وشيك أو الله هذا قدوميها ما قرنايو محمد كان بالله هذا ما قرنايو ما إكرام باتر هذا ما قرنا أنا عيد أنا عركه ووجه توجيه يعيد يورته في الكيسان ما عرقان اللي يديني وحبينا قرنيان ما قرنا وحي قرنيان ما برايفت فاميلي قرنيان ما واحد كلو وين باكيرا عمر اللي يودي واللي يدي لمن يجرين لمن عاون وانا waxaa meesha u joogo hatta haday iimanay familka diyaar baa hotelka yaa siinay hay yimaadaan qof waxaan ahay dadka Soomaaliyeed raba war inuu u gudbiyo xaqiiq ba meesha u imaaday aniga Omar hor xirna oo meel ku xiran hal baqan ku jiray yaa aniga korka laga saarin oo dadka lagu dirin dadka ay soo dirsaday ba si daacad hadda ugu waramaya hadalkii waa cadi yahay inaadeer waxa la yahay hilaaca biyihiisu cadaysa deeqiisuna hadalkiisu cadaysta inaadeer aan waxa qarqarnay malac ma qaado gudoomiyahan uu fiican yahay waa fiican yahay haduu xun yahay nila anu inta ka arkay ku soo dhaweeyay waa nin wanaagsan gudoomiyaha sheegtay madaxweynaha Soomaaliya u qalma waa inta ka arkay Omar isagu wixii ka dhaxay laba shakhsi yihiin haduu Omar isku xanaaqsan yihiin aniga Omar laba dudaayo ma dhaxayo Omar buu ninkan xumeeyay Omar haduu xumeeyay en Omar isaga laba nihiin laakiin suu aniga igu talagalay familkiisa iima fiiri familkiisa maday deeq soo dhawow deeq hotelkan nala soo deeq waa ku imaanayna deeq kala cashada deeq waa imaanay gudoomiyaha laakiin uu yahay garbax u yimaaday dan ko ma qaano gudoomiyaha Soomaaliya ninka dhahay shalay Umar dhiiggiisa waxa laga helay drugs haddana dhahay dhiiggiisa drugs lagama helin soo gudoomiyaha noo sheegay soo maahan gudoomiyaha waa wadi soo ku dhahay muxuu soo wuxuu dhahay live aan u weydan la fadhiya hadda way annaga TikTok wuxuu ka yiri adeer maxaa wax suubal gudoomiyaha soo maahan ninka yiri ninkan drugs laga helay oo markuu qaalid mala wadiiyay live ayaan soo furtay gudoomiyaha oo la soo xiriiray deeqo war ma ogid mana ku sheegin gudoomiyaha oo la soo xiriiray maasis buu soo diray maasis waliba conflict aan fahmi waayay oo leeyahay qol soo fur qol marka soo furtidna dad caana balami waa faantaa umaleena oo faanto maahan markaan qolka waayaha maan ku dhahay waxa wuxuu yiri waxyaalo badan baa la qalday wixii la qaldayna saxaan rabaa dad su'aalo fiican haystana keen dad caana keen waxa shalay ba ahayd wuxuu yiri waxa balamisaa marka Afrika u tahay 11 o'clock marka waqti u tahay ma aqaan markaan Google garay aan faari waxay noqotay aniga 1 o'clock oo galabnimo noqotay waxay duurkii noqotay duurkii markay wax yariisa ka dhiman tahay gudoomiyaha maas intuu soo diray dadkii caanka ahaa dad kasta waxay ugu soo dirtaa qolkayga soo furaya aniga ma ogtaa qolka kale ma aado ana waxaan ku dhahay qolkaaga ma soo furaysaa ama ana sababta qof qol isku soo xiraa waa taqaanaa deeqo aniga isma ka sheegay qof intuu qol isku soo xiro dhahay ani su'aal hal wadi su'aashaan rabaa gudoomiyaha annaga daan nahay teamkeena aan nahay dadkayga aniga 1 milyan zed boqol oo kontiga ku jirto gudoomiyaha annaga ma aaminsanin hadda adiga gudoomiyaha heshiiseen hadda adiga gudoomiyaha aad hab siiseen hadii caaligal lagu siiyay
haddii maaragtay nacnac lagu siiyey deeqow annaga guddoomiyaha waxaan u aragnaa enemigii inuu yahay walaalkeen inuu yahay guddoomiyaha waa wax dhibaatada dhan waxa dhan ninka suga ku siinayaa sug guddoomiyihii waa ninka intuu qol soo furtay qaalid mulla weydiiyey su-aashii agmuu jooga nin kale aad soo booday kow guddoomiyihii waa ninkii walaalkiisa oo dhibaataysan oo ku jiro meesha ogaad compoundka ogaad ku jiro heesiisa daaray ilaahay aan kugu dhaarshay ka hor muxuu yiri mataqaanaa guddoomiyaha waxaa ficnaan lahaa inaan noqdoba DJ ilaahay aan kugu dhaarshay guddoomiye wuxuu ahaa walaalkiis u hiilinahayo oo dhibkiisa diidan oo dadka rab inuu qanciyo ama guddoomiye wuxuu rabaa inuu soo caanbaxa ah fiiri aniga qofna kama baqo AJ waa xishooda ima baqo guddoomiyaha wuxuu ahaa nin TikTok soo galo oo rabo inuu caan noqdo adeer caan hadaa rabtid aniga imow AJ caan iga dhigdhex halkaasaan kuu soo fadhisanaya dadkan aan kula hadlaya 5,000 qof daawanaysa 5,000 follow gareeya la video aan kuu soo galaya laakiin walaalka oo adiga aad keentay meesha leer Norway aad tiri imow oo adiga waliba waxyaalo badan ka sheegtay wuxuu ka sheegtay inaan ka hadla marabi intaad keentay meesha baasaboorkiisa laga jeexay Tarbin iyo Fai soo qaba labadaas qof soo qaba Tarbin iyo Fai waa soo qabanaa dadkii markii la keenay meesha oo adiga wiilka keentay baasaboorkiisa laga jeexay oo wiilkii dhiban reerkiisa maxay ku dhaheen waxay ku dhaheen familkiisa la ii soo sheego hadal xaqiiq ah waxaa lagu yiri wiilkan afaarihiisa dambe ha ka hadlo maxaa aan ila soo xiriirtaa oo tiri wiilkaas inaan ka hadlaan rabaa haddii familkiiba ay ku dhaheen wiilkan afaarihiisa dambe ha ka hadlin afaarihiisa ha soo gelin maxaa intaa u soo gashay TikTok aartin aga hadashay meeshaan qabiil ma yaallo meeshaan ma taalo jaqjaq kale ma taalo meeshaan waxaa taalo hadal run oo valuable ah oo very crystal clear ah yaallo niyo caan aragti inaad noqotid wiilkan miskiinka aan hore u sheegay wuxuu ugu yiri aniga dad waxaa jira marka aniga la aaminsiyo caan rab inay soo noqdaan adigaan ka kow ah deeq geesad markuu shalay baxaayay nin cadcad buu ahaa oo hadalkiisana qofnan aan lafleefinin maantana waa kana deeq geesad maxaa la siiyey deeq geesadkii adkaa oo adkaayo anaga la yaabaneen oo runta raadinaya maanta nin oo lafleefaya uu ku leeyahay waa nin oo maartay madaxweyne noqdo kardashankiisa litisay waxaasaa la samxee tahay maxaa naga gala ninkan aniga intuu soo furtay guddoomiye qol soo furtay buu wuxuu bilaabay inuu anaga Norway noo faaniyo Norway maxaa naga gala inaa anaba lagama yaabee ila aan hargeen fir Norway saan waaye ra'iisul wasaaraheeda saan waaye kida waaye meel saan waa anaga Norway ma rabin qol intuu soo furto ana qolkayga hadduu imaan lahaa saarku imaan lahaa markuu dhaho Norway iisoo galab wax dhinaca Norway faanin nin Mareykanaan joognaa Mareykanaan nahay Norway waxna noo faanin walaalkeen aawe deeqo najibo yaa ku soo qabta abuu hal su'aal inaad dhegeyso anigu hal su'aal ku soo dhegeyso 30 second warin maad reedo dhegeysta anigu meesha waxaan u tagay waa Omar najibo kaadi anigu meesha waxaan u tagay waa Omar familkiisa in aniga soo dhaweeyaan oo dhahan deeqo waxaan kula qabanaynaa ama xurmeeyana telefoonka iga qabtaan oo ila hadlaan dhahayd deeqow inaad kan iyo kan samee oo ila shaqeeyaan baheed guddoomiyaha waa halka qof oo aniga ila shaqeeyo oo yimaaday oo dad ila wacay oo meesha igeeyo oo meesha iga qaaday marka guddoomiyaha qofkii waxay taray baa fiican mise familkiya fiican ilma adriyaalo mise anigu been baa sheegay dadku waxay jecel baa u wariyaa uma wari karo anigu cid dirta ay ugu jeclaato cid dirta ay ugu nacdo guddoomiyaha dhageyso hadduu tuug yahay inaad asaga u taala hadii wax ka dhaxayaan familygana waa dareemay waxaan dhahay gabadhii ikraam ahayd guddoomiyaha 10 jeer baan weydiiyay ka badan iiwac wana iiwici waayay halkaas waxay ugu cadaatay inay familka iyo guddoomiyaha loo saaka dhays waxa qabiilka ka hadlin hadda qabiil bay noqotay xogro guddoomiyaha meesha laga cayriyay waxa hadda qabiil ba ka hadlay deeqo si marka uu hadlayo faya farx marta jib faya farx okay anigu meesha jooga familka hay yimaadaan guddoomiyaha cayrina familka hay yimaadaan ma hadli karaa AJO ku socdo wax yar deeq goosad wuxuu yiri guddoomiyaha waxa Maxamed Najax baa igu daray ha anaa kugu daro meesha buuq baad ka abuurtay dumarkana waad la murmayso dagaal baa idinka dhaxeeyay AJO Amiin Muuse soo qabo hadii aad u jeedo wax soo darsanay oo bax buuq baad ka abuurtay meesha been iyo waxaan jirina waa sheegaysay live-na waad ku jirtay Omar inuu ku daayayna waa sheegaysay oo halka qolka lagu qashay halka ku jiro wax qaleynana laguma sameeynin
sida afka ay ka sheegaysidna waxaad sheegaysaa in kiniin la siiyay xataa aan irbad la siinayn gudoomiyaha waxaan kuugu darayna sababta aan bayd maadaama meesha buuq ka abuurtay ku imaanay adoo live ku jira meesha buuq ka abuuray duubaya dumarkii aad haysataan ayaa waxaan niri bal gudoomiyaha la hadalo wixii aad u baahan tahay dhan isaga bal kala xiriir baan ku yiri saas darteed aan kuugu daranay kalgacayl kale oo iyo maaragtay xigsiisan kale aan kuugu darsanay horta meesha ma jirin waa mahadsan tahay inta maadaama aad dhahday waa inaan ka daba inaan saxa weeye hadalkaas aad baa u mahadsan tahay inta ma rabay inaan saxo eji aniga ma hadli karaa sorry gudoomiyaha baada soo gashay gudoomiyaha waxay ugu dareen community meeshii garan Soomaalida ehelkiisa walaalihiisa waxay ugu dareen maxaa diri waxaan wallahi inaan seexaan rabaa hal su'aal aan rabaa bas okay bye see the fight idigu meedin waxa ka wada AJ iyo groupkii community-ga sheegaya hadii alladii maxaa gudoomiyaha u raacday waqtiga dadkii meesha deganaaye wuxuu yiraahdaa afkiisku yiraahdaa annaga ku darnay meeshu deeq joogay ninkaas gudoomiyuhu noo deeq baan ku darnay marka kadibna familkii ima soo xariirin waa raadiyay telefoonada way ugu cabeen meeshu ay geyn waayeen in aniga gudoomiyihii xariir wada yeelano meesha lacag ma taalo lacagna ima siinin deeqow taajidkeeda maada soo marin walaalo taajidkeeda maada soo marin meel xun baad ka bilowday intaad cartay baad tagtay meesha waxaanad ka bilowday ma noola iyadoo 6,000 oo qof ku daawanaysa waxa jiray Omar muu idin daayay ma noola olkaas lagu qashay aamin ba walaal fiiri aamin soo qabta qof ugu cabbi markaas fiiri markaas warmud baa galay Omar ma murmi karnaa faya baa hadal sidii deeqa u dhiibaayay waani baryaya hanugu agmurmina horta dhalinyaro baan nahay annaka qabiilistayaal ma nihiin dad Soomaaliyeed baan nahay Omarna waxaan taageeranaa waa wiil Soomaaliyeed صح midda labaad walaalo macaanow annaga hurdaan ka tagne oo harsiyaan ka tagne oo ma seexano oo aqtigaan kula hadlayo ilaahaygi maxamed sameeyay diintaan ku dhaartay xalay hadda waxa ii teel 7 saac ilaa hadda ma seexan email baan dirnaa we're not telling you deeqow abow aniga su'aal baa adiga ku qaba maxamedow adigana su'aal baa ku qaba maanta dhan labada qofooda su'aasha u qaba waa labadiina labada deeqow su'aasha ku qaba waxay tahay walaalo macaan wixii aad tiri iyo waxa dhanba naga badaama hadda anagoo live ku jirnaa waxaan ugu tiri ninka aniga waxa kaliya aan kala hadli kare ba business aha walaalow hadaad meesha business u tagtay why are you using Omar's name that's my first question so live kan ku jirna waa ku dhageysanayna let me finish abo please midda kale ah ku qaba ba waxay tahay niyow ada afkaaga nagu yiri aniga Omar ba u socda dhiba haddana wax 10 minutes ago miyama 5 minutes ago waxa dhahaysay reerka ima soo dhaweynin walaalo macaan ma Omar xanuusan iyo reerkiisii oo dhiban inaad caawisa u tagtay oo annaga nagu matasho mase waxa u tagtay prince treatment ina heshi ma boqortooyo camal ah rabtay ina airportka gaariyaal lagaaga soo qaado ma waxa rabtay ina I don't know what you expected annaga waxa what was your game plan marka airportka tagaysa oo Mareykanka ka soo duuleysay oo Norway u soo socotay what was your game plan maxaa damacsaneed seeba Omar ku caawil lahayd sidee baan ugu caawil lahayd annaka you get my point what was your game plan no hadaada game plan lahayn no please hadaada game plan lahayn ani ma jecli maanta dhan ma rabo inaan kugu soo laabto kaliya su'aashaada hal marna isku kaaraaciyaa raba that's first second in adeero macaanow why campaign aan ugu bilaabaysaa iyo ninkan madaxweynuhu noqon karaa did he paid you to start that campaign why are we starting campaign right here in front of us while Omar hospital inooga jiro what the fuck is that for ma madaxweyne inaan ninka u sharaxdaba anaga noogu imaaday niyo email baan dirnaa waxaad noogu sheekeynaysa is bullshit bro anaga email dirnay we know Omar meeshu ku sugan yahay we know what's going on you can't lie to us I know Africa jogo ba ka war haya because I'm sending emails night and every second ban email diraya bro don't lie to us Maxamed ba ii soo haray Maxamed walaalo macaan adigana nin ilaahay yaqaan oo kalaan runa ku hadla ma tihid Snapchat ba anagoo emotional oo ooyneen oo Omar raadineen ba waxa noogu soo qortay biri 5 saac ba inay tusaya where is it mana tuste
waa maya niman wada jirka dhaqanayaa tihiin niman wada jirka dhaqanayaa tihiin annaga xanuunkeena nabarkeena basbaas marinaysaan cusbaa marinaysaan nabarkana haya runta anaa inii sheegaya meeshaan ijiid ah ku jiida iyo lamikiis iyo aas we don't need that bullshit wixii runtaa inoo sheega runta anaka aan ogaanay okay what is happening walaalo macaanow parkingka ku yaala gaariga gudaha wax kama ogid you are nobody gabadhaasaa qaada dejisa ana afkaaga inooga sheeg anaaba hadda ku sheegay su'aal adimaba ku hayaba xanaaqaaga ay haya inaadeer macaan inaadeero macaano waan ugu jejeestay wuxuu qaslay asoo life ku jiro oo maxamed su'aalihiisa la weydiina aan maqlay oo dhahayo maama eedo uu ku hay eedo maxaa ka wadani asaga u baahan inaa la daawe war ma waqti aan jejeesnaa la joogaa ma waqti maanta aan jejeesna baa la joogaa ma waqti maanta qof nagu qosla baan joognaa maxamed videogiisa haya AJ oo private aan kugu soo dira asoo live ku jiro qoslayo ajiib su'aaluhu weydiinay maxamed ilaa maalinkii kow Omar la qabtay ilaa hadda si tartiib u fiirsanaya ninka maxamed walaala macaan let me tell you something maxamed Omar baasaboorkiisa qofka jeexawaad ogtahay Omar baasaboorkiisa waxaan ugu tiray Sweden baa lagu soo jeexnay oo annaga dad jaamacad dhameeyaha taanahay I have a degree in marketing you can't lie to me Omar sidee baad iigu leedahay Omar wuxuu ka soo tagay Sweden oo baasaboorkiisa lagu soo jeexay he came to Norway warniyo xataa haduu bas ku imaad xataa haduu technical ama dhahnaba xataa checkpoint ma jirin Omar hadii baasaboorkiisa Sweden lagu soo jeexay that means asmarku life ku soo galay asagoo baska saaran soo galay laha Omar is smarter than that Omar nin aqli u leeyahay Omar adinka dhan hadii isku la keenkan waniga aqli badan Omar stress u darteen يارتن كور جوابه داق اور محمد يارتن كور جوابه اي هور جوابه محمد انا جوابتيسا مرة محمد هنغا خشوده هدا سومالينahay وجوابه يا سبتو سؤالها ويديس ابايو فاي to be fair you asking a very critical question about this marka igu qaada aniga maadaama su'aal weydiisan maxamed inuu isdifaaco xaq u leeyahay deeq ka hormar deeq soco أبا السلام عليكم فايا جوار أقول لي بعطيه وكم مقطع حغير عراق كويسة لكن سبحان هذا people are very emotional degree waxaa haysataa oo business but degree investigation ma haysatid qof walba businesskiisa shaqadiisa ku ekaada fiican horta aniga hadalkii qalad inuu fahantaa laga yaabaa marna aanu cid aan dhahay business baan kala hadlay ma jiro iyo cid anigu la heshiiyay ma jirto ii sheeg hadalada anigu dhahayna waa code waa wax la soo minguuriyay hebel baa dhahay haddaan dhahay ninkaas madaxweynuhu rabo wuxuu igu dhahay baan dhahay hadalka si fiican u dhageysta marka familkiisa aan dhahay maxay igu imaan weeyaan uma dhig roog cas ay dhigaan sidii igu yimaaday aan isku baranay gudoomiyaha waxay ahayd inaan live soo galay oo ka carooday meeshu ku xiran yahay walaalkeen aan aaday inaan umad Soomaaliya uga soo warbixiyo raq iyo ruux muxuu ku sugan yahay meeshii markaan tagaynay ila noqotay meel bahla galeena ayaan live soo galay sidaas ayaa waxa igu yimaada dad badan dad kale ma kala aqoonin anigu dadka ma kala aqoonin dad badan baa ii yimaada dadkii badnaana waxay isku raaceen gudoomiyaha inaan raaco oo asaga maartay is afgarano oo arinta la dejiyo waanigi saaxiibkay mise walaalkay Maxamed aan marxaati ka shaday uu ii furay marka anigu waxaan ula jeeday familkiisa markay arkay inaa safar u imaaday umad Soomaaliya u hadlaayo in ila soo xarana deeqow soo dhawow walaalkeen xanuunsan mise abtiga kaale soo arag ii geeyaan dadkan uu cadeeyo wixii la dejiyo arintana aniga maanta weydiisanaan lahayd si kartiba ama intay soo kaxaystaan ii yimaadaan dhahan deeqow kan baa jirta dadka waxaan u gudbi waxaana ka hadlin iskana dhoof waa mahadsan tahay familkiina si noocaas ay ila kulmaan ayay ahayd familkii waxbay qarinayaan familkii way kala dhunteen familkii telefoonadii bad aaminkaas waa walaalkii sida u malaynaayo waa walaalkii asaga la dhashay waan adeerkiisa ka wada sida gabadha ikran bay ugu siman yihiin waa walaalaha kale ay aamin muuse in adeerkiisa oo Norway degan waa iga dhuntay waan raadiyay waan Norway degan yahay waa iga dhuntay oo idii way kaalay soo dhow walaalkay oo imaaday oo ku mahasanta waqti loo soo gelisay waxa li qof wax ku sii waarta laakiin qof maartay wax ku sheey maartay qof safar ku soo galay oo diyaar ku soo raacay oo ku yimaaday inaad soo dhaweysid aanu rog cad soo dhihin walaaltinimo li soo cad li qadar li yiraahdo inaad waxaan ba jira ma arag kartide dadkan oo cadeen naga
laho maantaasna uu soo bixi doona ma ogin markuu soo baxayno inay cadeen familkiisaas inay isu dhawaayaan bahed laakiinse gudoomiyihii dadka wada caynayeen aniguna u arkaayay oo haddana weli aaminsan oo mar hadduu yiri gudoomiyaha Yuusuf ii iimaanay inuu u iimaan habeenkaas soo gala dhahay war sidee gudoomiyihii uu dhahay Omar Yuusuf ii iimaanin sidee buu aniga ii dhihi karaa berri baan kuu geynaya oo ninkan asagoo mas'uul uga yahay anaa badhahay shalayna waxaan ogaaday gudoomiyuhu inuu awood u lahayn inuu ii geyn karin aniga oo awoodda kadibna waani hadda inta soo galay kuu fasiro ku rahay warniyahow AJ saaxiibow baalkii qabiil ba isku bedeshay ninka awood ma balahaba xitaa kabadhii إكران هاد موعي كرو أن كنت شربا ودينا وعواي حضر واكي نوع عدي محمد ويراها قدوميها أود مرة ويل كلام كل بكرة مركز قدوميه أود مرة وأنا أكله محو تو نقدام محا أنا وصاحبنا نقدام محو العيوسية ما بعرف كربا قدومية أود مرة هبا لما كل مكربا نكي وبلودي يصير لحي أنا مؤجي واحد ميال صار يصير مؤجي ما واحد دبي أنا يالي وقادر وحبا أنا كمؤجي ما أنا اللي قيلي قدوميها مياه ببيل إسلا دقاري ما وحبا يصير مؤجي عمر ما أركب لكن سأرجو ماشي ونيتجي أنت أورني سيكرنا ونسيي وحكروا برايفة الفيلم كانوا وادورة يا مركا فايا أنا أنت كوفا أنا كوقر على إلهها كردو أنا قدوميها العقل مثلا صاحبنا اللي بقيه اوكي كوسع محمد كوسع ابو موسق سنه horta ma jirin gabadhaas waxay tiri najax wuxuu dhahay maxamed najax wuxuu dhahay bay tiri baasaboorka waxa soo jaxjaxay Sweden horta cadeyntaas ma hayso baasaboorka wiilkaas isagoo nabad qabo naga tagay 20 bishii saa idin sheegay Sweden baa lagu soo dhaweeyay social media saa ka arkayseen dadkiisa soo dhaweeyay maalinkii dambe uu soo laabtay isagoo live ku jira ayaan aragnay imaanshihiisa uu imaanayay iyo live-ka markaan ka soo kaxaynaynay aniga halkaas markaas aragtiisa kooda horta iigu horeysay Sweden markuu ka soo laabtay baasaboorkiisa inuu go'aan yahayna markaan halkaa ka soo kaxaynay meesha live-ka ka jiray tuuladii Oslo imaanay malaha 5 saac 4 saac oo qadaynay kadib oo shaah cabnay Amiin Muuse uu fadhiyay meesha kadib ayaa dharkiisa la baaray oo baasaboorka la soo saaray isagoo go'aan la arkay ma fahanteen xilligaas la arkay marka baasaboorka ma markuu Norway joogaa la jeexay okay ma markuu Sweden jiray baa la jeexay mise intii u dhaxaysay baa la jeexay intuu safar labada safar midkood maray cid arintaas hadda oran kartaa sidaas weeyaan ma jirto maalinka hore sidaas ay gabadha way khalad fahmi kartaa Snapchat-ka noqotay Snapchat-ka dawalaalo 2,000 oo qof ka badan ayaa su'aalaha ay weydiinaya Omar ka waran marka dhamaan maadaama uu wada jawaabi karin qof walba uu fiican yahay halka ka oran karin hal cod baan soo dhigay Snapchat-ka ka saaran ayaan isiri dhamaantood ha wada arkaan ha ku qancaan ma garatay xala qof uguma jawaabi karo laftarkaaga Snapchat waan kala hadlay waa run laakiin qoraalaan kuugu jawaabay uuna fiican yahay ku dhahay sax waa sheegtay inaan eri Omar waa tusaya laakiin waxay iri waa haddaan awoodo hadday macquul noqoto idan dhahay hadday macquul noqoto beritoole waxaan isku dayi doonaa inaan Omar idin tuso ama fiideo laga soo duubo eheladiisana la hadlo arintaas waxa dhahdeen noo damaanad qaad waxaan idin dhahay guarantee idima siinayo laakiin waan isku dayayaa inay macquul noqoto arintaas macquul way noqon weyday waayo ehelkiisu ma ogola in wax laga duubo ilaa inta halka soo fadhiisay isagoo oranayo waa ikan wayna ku saxsan yihiin waayo qofka markuu xanuunsado ehelkiisu in qofkaas intuu xanuunsan yahay wax laga faafiyay mas'uuliyad ba ka saaran intaas ehel isku yahay oo loo dhalay dadkii dhalay ayaa wiilkan haysta dabeebanaya Amiin Muuse ka mid yahay Cabdullaahi Xarfa ka mid yahay walaashiis Ikraan isku meel ku barbaaran ay ka mid tahay marka malaawalka iska dhaafaniyo anagiiba taagnayba meesha ayaa idin la hadlaynaa aad ma santaa okay aan qaataade arka qaado okay niyo horta Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa beentaada hore baa runtaada dambe dishaa laba nin baan anigu halkaan aan rabaa hadalla waxay ku hadlayaan aan islahayn hadalkii 10 daqiiqo ka hor oo Maxamed ku hadlay hadda hadal buu ka dambeysiyay deeq geesood asagu xiisa waa cadaystay deeq geesood wuxuu ku cadaystay ko wuxuu yiri Mareykan waxaan anigu aan wasoo duulay inaanan waxba qarin okay wiilkanu waa wiil dhalinyaro ah waa fanaan umada Soomaaliyeed waa nin la yaqaano waa nin hal 10 toban sakin besa
هذا كان كنت baasaboorkaygii buu nagu yidhi intaan jidka kusoo jirnay baasaboorkaygii wuuna weydiiyey kadibna guriga markaan imaanay dharka iyo ما ينادر وحبا قدام هنو راعينا محمد أقب حضرتك اوكي قال لنا هذا ياسين هذا سوق قبنا سوق اوكي دقيقة صدوح يري مريكا waxaan uga soo duulay waxba inaan aqrin family-gii fanaanka waa iga dhunteen la ima soo dhaweynin hadalla badan baanu ku haynaa deeqgeesod kow live-kii ugu horreeyay deeqgeesod uu soo galay wuxuu uga hadlay naagaa la iga qabtay naagaa la ii farabaxsaday naagaa dabcan inay ii dilaan okay kii ka xogay wuxuu ahaa la taliyahayga oo joogay ingiriiska oo wiil ogaadeena ah baa isoo wacay weerar baa lagu soo yahay hoteelka ka guur waana ka guuray hoteelka hadda waan isaga tagay mana degani oo waa ka tagay qodob okay waxaan rabay nin dhalinyaro baan ahay oo ninka u socday oo rabay in xogtiisa ummadda Soomaaliyeed aan la wadaago laygu soo dhow leeyma soo dhoweyn oo cid ii timid ma leh family-gana waa ga dhunteen okay deeqgeesod waxyaalo badan oo halkaan hadda horeyna uu u yiri haddana uu u yiri oo cadayn ah oo ah ninka xumaantiisa inuu doonayo halkaan nooga cadeey ninkii khiyaanada watay ee fayuuska ka raadinayay ninka walaalkiisa oo in adeerkiisa oo fanaanka ah oo gudoomiyaha ah oo doonayay 100 qof ka badan ninkaas waa wacay jabru wacay AJ family buu wacay Khalid Mullo wacay qof kaste oo public figure ajiib wacay najiib wacay wuxuu yiri qolka iyo soo furo ka bacdina dadkii la taliyaashiisa ahaa ama asaga groupka ay ahaayeen baa waxa la fayuus tira badan baad keenaysaa oo mar hadaad maanta ka hadashid waxa ku daawanaysa 100,000 waxa ku daawanaysa 80,000 60,000 aduu qolkaaga soo furo qolka wixii maxaa u tagaysaa buu maanta noo amaanaya okay qof walba waan ognahay shakhsiga uu yahay deeqo haddii dadku aysa ku aqoon oo nin wanaag raadinaya aad tahay oo dhalinyaro ah oo ninka ka naxahaya oo walaalkiisa oo fi sabiilillaahi u socda in adeer qofka kugu horeeyo Soomaaliyeed oo amaar ka warqaba ninka Omar ka warqaba baa ku soo dhaweyn lahaa gacmo faran ku soo dhaweyn lahaa kooran la ninkii noocaas weeye ama wax xanuunsan yahay ama hadda looma tagi karo laakiin shakhsiga aad tahay baa hore loo yaqaan xaqada runta ku sheegay shakhsiga adigu aad tahay baa hore loo yaqaan waayo maanta nin miidiyaha ugu horeysa ma aha shadan milyan geeyana ma yaho waxaan leedahay waxaan la kulmay farmaajo xasan sheekh baa la kulmay warfilla Soomaaliya cid walba waa gashaa anigaan baa Jarmal intaan ka tagay galay bil soo joogay soo baashaalay madaxweynayaasha la sawiran halka sawir iskala soo qaaday la igu soo dhaweeyay maantana wariyo Soomaaliya ma sheegan karo okay xumaantaada marka taas oo adigu waa iska cadahayba awal baa hore maama waxaan ku wari hiriditi wax la yiraahdaa kugu saabsan dhiigaagana ku samaysan uurkooyadaana kala soo dhacday cudadaas alla ka daway deeq baan leeyahay marka okay waxa ay soo haray ninkan dhalinyarada baa ay soo haray maxamedow in adeer waxaan kugu wari su'aalan ku weydiiyay Omar meel aan magaalada ahayn ma ku kulanteen waxa tiri Sweden markuu ka yimid ma arag hadda waxa iigu horeysay meeshii live-ka uu ka soo galay oo aan ka soo kaxeeyay hadda tiri markii horena waxa tiri